garwaaqsaday in loo baahan yahay in mar labaad aynu samayno gurmud qaran sidaa darteed waxaan u bedelay dabaaldegii iyo dabaashaadkii 18 May oo ahayd munaasabadii qarankan qaaran ururin balaalan aynu ku taageerno dadkeena tabaalaysan si looga dhaliyo mashruuca qiimaha badan waxaan magacaabay guddi qaran oo ka kooban noocyada kala duwan ee bulshada culimaaddin ganacsato ururada bulshada rayidka iyo xisbiyada mucaaradka iyo xubno ka tirsan xukuumadda guddigan waxaan u xilsaaray qaaran ururinta balaalan ee ka bilaabanta dalka oo dhan maanta oo ay bishu tahay 18 May ilaa 26 Juun 2017 qaaran ururintan oo socon doonta muddo 45 cisho ah waxaa lagu fulin doonaa mashaariic lagaga soo kabto sanadkan waxaanu madahaan nagu habsatay abaar ba'an oo waxyeello weyn u geysatay dadkii iyo dunyada aynu dhaqanaynay iyo degaankii aynu ku noolayn intaba daraasad hordhac ah oo la sameeyey waxaa lagu xaqiijiyey in qiyaas ahaan 70% xoolihii noole ay dhammaadeen waxaa markhaati doona in xoolaha noole ay yihiin dhabarta dhaqaalaha dalkeena markii dad badan ay xoolihii ka baxeen waxaa dantu ku qasabtay inay ku kaxiroodaan magaalooyinka inkastoo ay roobkii inoo da'ay qayladhaantii abaartuna aynu ka nasanay haddana waxaa dhaba inay dhaxalsiisay dhibaato weyn oo u baahan gurmud degdeg ah iyo qorshe aynu kaga soo kabanno tabaalihii abaarta qoysaskii aynu xilligii abaarta caawinaynay waxay soo doogeen iyagoo badi cayl ah xeradii xoolahana uga buuxi jireen ay malan tahay oo cuud iyo calaf kalena aan haysan bulshada Soomaaliland waxay su'aal gelisay halka uu ku dambeeyay qaadhanka laxaadka badan ee loo ururiyay dadkii abaartu ay caydhaysay ayna ka leedeen xoolihii ay dhaqan jireen jidada caawa madasheenu waxa weeye in aynu qaran u ururino dadkeena tabaalaysan mashaariic ay kaga soo kabtaan muxuu ahaa diiftii gaadhay guddiga madaxweynuhu u magacaabay oo 25 xubnood ka kooban oo ah dad ka kala duwan sidii khudbadda madaxweynaha ku jirtay noocyada bulshada waxay muddada 45 cisho xaqiijin doonaan inay qaaraan ka ururiyaan kadibna ay ku fuliyaan shan maxsuul oo halkan madaxweynaha qaranku ka akhriyay waxaa kaloo guddiga u qorshaysan 10,000 oo qoys ugu yaraan in xoolo loo iibiyo la xooleeyo xoolahaas waxaa laga soo iibinayaa dadku wax soo doogeen waxaa la siinayaa loo iibinayaa kuwa cayloobaya maran gobolada dalkana waa laga daraasad baa lagu samayn doonaa muddada laba faa'iido lacagtaas yeelanaysaa mar waxaa la siinayaa kuwa xoolahoodu jilicsan yihiin ayaa laga iibinayaa oo lagu kabayaa waynu ka iibsanaynaa marna waxaa loo iibinayaa kii caynka ahaa mashruuca saddexaad waxa weeye ilaa 12 seerayaal oo waaweyn ayaa dhaqso iminka muddadan ilaa July aynu ku ilaalinaynaa oo shaqaalo ugu sameeynaa oo gaadiid ugu sameeynaa 12 seero waxa deegaan waliba loo banaynayaa dhulka qaybay daaqaan xilligan iyo kuwaasna ay ku soo muxuu ahay u digan rabtaan xilliga jiilaalka maxsuulka afraad waxa weeye 25 ceel oo dhaadheer iyo 20 balli in lagu qodo isaguna mashruuca shanaad waxa weeye in aynu qodno 35,000 oo beerood oo muxuu ahaayay dadka jilicsan ka caawino midkiiba ugu yaraan 3 saacadood halkay ku dambeeyeen qaaraankii lacageed ee loo ururiyay bulshadii ay caydhaysay abaartu وحين ما هينو مدعوينا وحن كعطنايا dadka Soomaalida ee caawimada islaamku ugu dhiibo wixii aan islaam ahayn inaan loogu dhiibin ilaahayna aqoon iyo rasuulkiisina aqoon daalina inaan loogu dhiibin dad islaama oo wax garanaya oo ilaahay xusuusan loogu dhiibo waxaan ka codsanayaa inaad ugu dhiibtaan oo ninkii daalina ee wax loo dhiibo sida loogu talagalay islaamka la yiri uge aan siin ninkii daalina
sid islaamka islaamnimada ka baydha hala xiro halala xisaabtamo madaxweynahana waa kuu soo ducaynayaa ilaahay madaxaagana ha raajiyo nin wanaagsan baa tahay cadaabkiina alla kaa xorayo siyada lagu mushtaro magaalada loogu qoray macee shada kaanu geyn معاش بدن هلو انتو ملكال الامرو كان معالو كريدا ايا سماس دلي انت عيد دخله يداتي ما وران maxaad maanta qabtaa muxadada kuwaas inoo soo gaadhay nama soo gaadhay anaga nama soo gaadhay hadee hadal aan maalin dhaw duubnay baa waxa la yiri de macal salaama mar hadaad idinku hadasheen oo naga kaaftoonteen idinkaysu anagu cidna maanu durinay waanu baaqun baanu diranay dadka islaamka baanu u diranay ee deeqda bixinaysa waxaanu nidhi waxa aadna siisaan waxaanu jecelahay inaad noo keentaan oo dhexdayada noogu qaybisaan markaasaan baan ugu tiri mar hadaad rag la hadasheen de ragii maxay tahay idin debiro waxa weeye dadkii miyiga ku daadsanaa oo maxaan ku raahdaa xayeeshka xoolo dhaqatada ku sii dambeeyay waxay ku sugan yihiin xaalad halis bay ku sugan yihiin dadkii wixii jiricsanaa maatadii wixii socon waayay halkii baa lagaga tegey dib looma soo egin way waran yihiin wax ururiya gaadiid urusha gurmad lagu urusho biyo wax u geeya midna ma jiraan waayo waxa weeye duur cidlaa bay dadkaas u daadsan yihiin oo lagaga dhaqaaqay nin waliba maanta ninkii wuxuu yidhi ninku waa inuu faytaa maanta oo kale ninka ragii waa faytaa nin ragaa wax kuu tara markaa toogaleedahay waxba taybal kuma naafaco iyo taraqa liitaa siyada lagu mushtaro magaalada loogu qoray macee shada kaanu geyn معاش بدن هلو انتو ملكال الامرو كان معالو كريدا ايا سماس دلي سيدا لغو مشترو مقالة لوغو قري معيه شدا كانو جين معاش بدن هلو انتو ملكال الامرو كان معالو كريدا markasta waxaanu barbar taaganahay bulshada tabaalaysan iyo dulmanaha idman barnaamijka waxa idin la socodsiin doona anigoo Cabdiraxmaan Ismaaciil Siciid